labadii maalmood ay ugu naxdin badnayd adduunya reer baa halkaa loo galay waxay ahayd maalin New Zealand tagay Auckland magaalada la yiraahdo oo dabayaaqadii 98kii ahayd iyo maalin aan London tagay oo 2 yahay labada maalmood bay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo meel ku xareysan oo dhammaan afarta xaraf qabaan u tiri oo Soomaaliya afarta xaraf ma taqaan four letters saddex uu ku bilowdaa afarna uu ku dhamaadaa HIV markuu dalaca maxaa la yidhahdaa plus ku darmado imise xaraf uga koobma imise leeta wey afar waay afarta xarafkaasaan uga jeedaa 700 oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo xanuunkaa wada qaba oo kalena waxaan ku arkay ilaa 50 dhalinyaro oo Soomaali ah baa waxaa la igu yiri markaan tagay train stationkay joogaan oo habeenkii ku cawaysimaan waan u tagay waxaan yidhi Soomaali soo ma tihiin waxay dhaheen naaw mani maxaad tihiin Jamaican baan nahay Jamaica ku faanaya waa la sheekaysta maxaa ku kalifo Soomaalidu waa rubbish people bay yiraahdeen Soomaalidu waa rubbish people ka jadada jooga ee Soomaalinimadii ka faanaya ku sii dhalay maxaa malanaysaa